حسن شيخ محمود doorasho dadbanna ma rabo doorasho qof iyo codna ma rabo wuxuu rabaa extension waxa inuu waqti intuu ka dhamaado inuu qaato extension sharci darro rabaa hadda siyaasadda taagan dad badan baa inay isweydiiyaan baa laga yaabaa maxaa hadda taagan dhibka muxuu yahay dhibku wuxuu yahay dowladda hadda jirta aniga aan ka mid ahay baarlamaanka aan ku jiro waxa ay rabtaa dowlad center ah oo dastuurkeeda aan la ilaalinin oo aan heshiis lagu ahayn oo qofka xamar jooga maskaxdiisa sidoo rabo wax uu yeeli karo ayuu rabaa inuu macnaha ku maamulo Jubbaland waxay leedahay dastuurka ay leedahay waxa ku qoran inay baarlamaan leedahay inay garsoor leedahay inay golaha wasiir leedahay inay leedahay taliyaal ciidan leedahay inay ka kooban tahay 3 gobol inay leedahay baarlamaan 75 xildhibaan ah in wax dooranay uu leeyahay baarlamaankaas ayaa ugu qoran dastuurka Jubbaland ay leedahay waxaa la rabaa sida maamulada qaarkood loo dhaqmayo in la dhaho Jubbaland isma dooran karto dastuurka kuma dhaqmi karto aniga haddaan rabana ninka madaxweynaha ka uu joogi haddaan aniga rabin uu tagayaa saa la socotaan dowlad goboleedyada hadda jooga kuwa dowladda ugu dhamaaday laba sano qaarkood joogaan حسن شيخ محمود doorasho dadbanna ma rabo doorasho qof iyo codna ma rabo wuxuu rabaa extension waxa inuu waqti intuu ka dhamaado inuu qaato extension sharci darro rabaa inuu la rabin doorasho dadban iyo mid qof iyo cod aba waan idin saweyn waan idin cadeyn Puntland doorasho qof iyo cod gol deegaan bay qabsatay iyadoo rabta inay qabsato doorasho qof iyo cod ah dowladda federaalka Soomaaliya malaayiin dollar ku bixisay lixdan lagu celiyay wala socotay daacad oo kala socotay SCC hadda la dhisayna doorasho dadban baa lagu dhisayada saddex maamul goboleed kalena iska jooga leeyahay ana ma xilli aan fasaxad doorasho aadaysa Jubbaland doorashada dastuurkeeda golaha qabsatayna waxa leeyahay ma aqbalsan dastuurka Soomaaliya meel ay ka qoran tahay dowlad goboleed doorashadiisa ama dowlad goboleed baa aqoonsi karta dowlad federaal ah ma jirto dastuurku waxa ku qoran xubnaha kamid ah dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada kamid ah dowladda federaalka ah doorashadooda waxa lagu maareynayaa dastuur dowlad goboleedka lagu maareynayaa hadduu khilaaf ka dhex dhasho dowlad goboleed iyo dowlad federaal ana waxa lagu xalinayaa wada hadal iyo isqancin baa lagu xalinayaa dastuurka saas ku qoran wala socotaan markay Jubbaland doorashada qabsatay waxa tallaabada la qaaday ogtii dowladda federaalka ay qaaday waxa ay Jubbaland noqotay ma saarnay waxa ay madaxweynaha waxaan u jarnay waaran waxa ay yiri raska boona ciidan uu daadguriyay intooda inuu dulmi ku socdo warkiisana kullu ku jabay qofka dulmi ku socdo awood uu leeyahay ma guuleysanay qof marba dulmi ku socdo awood uu leeyahay ma guuleysanay hadduu guuleysto xataana ma waaraya ma Jubbaland waxay cadeysay shacab ahaan iyo ciidan ahaan iyo bulsho ahaan iyo hoggaan ahaanba inay adkaysiga hoggaanka Jubbaland Axmed Maxamed Salaam uu hoggaaminayo in laga soo gudbo waxa soo dhan oo maanta la soo afjaray